مسؤولينta gobolka iyo degmada magaalada Berbera oo ay wehelinayaan ogayaha dawladda iyo sidwaha wasaaradda warfaafinta ee gobolka Saaxil ayaa saakaasi wada jir u dhagax dhigay xafiiskii u horreeyay wasaaradda warfaafinta Soomaaliland ay ku yeelanayso gobolka Saaxil caasimadiisa magaalada Berbera sidwaha wasaaradda warfaafinta Cabdisalaam Sheekh Ismaan Nuur ayaa noogu horeyn halkaasi faahfaahin ka bixiyay xafiiskan iyo ahmiyadda uu leeyahay saxaafadda guud ahaanba runtii waxaan u arkaa inay tahay tallaabo horumar leh waayo waxay wax weyn ka tiri doontaa arrimaha warfaafineeda gobolka Saaxil oo runtii baahi weyn u qabay xafiis wasaaraddu leedahay oo laga sameeyo istuudiyaashii idaacadda iyo telefishinka qaranka arrinta runtii waxa ku sunta mas'uuliyiinta gobolka iyo degmada Berbera maanta farxad weyn bay noo tahay haddana maamulka gobolka iyo degmada nahay inaanu ka qayb qaadano dhagax dhigii xafiiska runtii waynu garanaynaa in jamhuuriyadda curdinka ah qiimaha iyo kaalinta ay warfaafintu ugu jirto gaar ahaan warfaafinta qaranka aad iyo aad baanu maartay xafiiskan soo dhaweynaynaa kaalinteedana waanu ka qaadanaynaa intaasi kadibna duqa magaalada Berbera iyo barsaabka gobolka Saaxil ayaa si diiran u soo dhaweeyay xafiiskan cusub ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliland looga dhagax dhigayo magaalada Berbera kan dhagax dhigaynaa xaruntii labaad ee xaruntan ay gaar u leedahay wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanku aad baan runtii ugu faraxsanahay in dhulka intan la eeg loo qoondeeyo inay wasaaraddu wax ka dhisato waxaan Ilaahay ka rajeynayaa in wasaaradda iyo wasiirka sida ugu dhaqsaha badan leh ay dhagaxan goobtan uga qaadi lahaayeen ay u dhisi lahaayeen ugu faraxsanahay gobolkan Saaxil oo lahayn meeshii laga hagayay saxaafadda maanta waxaan u dhignay dhagax wasaaraddii warfaafinta qaybteedii baa laga sugayay inay ka qaadato kaalinteedii baa laga sugayay inay ka qaadato وياسين جامع علي هل وناق نيوس مقالة Berbera